waxa kala aflagaadana waqaana iyo xilkiisu ku waaya xil ninkii ii dhiibtay iga qaadi kara nin iska soo socdaba iga ma qaadi karo wardegdega dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo gurigiisa ciidan ku hareereysay taliye shub isla markaana xilkii ka xanyuubisay jenaraal mahad cabdiraxmaan oo ahaa taliyihii ciidanka asluubta isla markaana sidoo kale ahaa sodoga madaxweynaha koonfur galbeed cabdulcasiis xasan maxamed laftagreen ayaa dhowaan xilka laga qaaday iyadoo sidoo kale la soo warinayo in hoyga uu ka degan yahay magaalada muqdisho ciidan la duldhigay kadib markii dowladda federaalk Soomaaliya ay marar badan jenaraal shub ku cadaadisay in uu wada hadal nabadeed la furo madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya cabdulcasiis xasan maxamed laftagreen oo uu sodog u yahay balse taliye shub ayaa dhowr jeer ka cagajiiday isaga oo sheegay in madaxweyne xasan dhowr balan oo uu la galay madaxweyne cabdulcasiis laftagreen uu isaga baxay dhankiisana ay ka yimaadeen dhibaatooyin kala duwan marar badanna uu ka maslaxay cabdulcasiis balse hadda aysan ahayn maadaama dowladda federaalk Soomaaliya ay ciidamo tirabeel ku sii daabulaysa deegaanada maamulkaasi taliye shub ayaana runtii indhaha ka saaray kadib kulan dhex maray isaga iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uuna madaxweynaha hadal culus oo uu si weyn kaga carooday xasan sheekh ku horyiri iyadoo la ogaaday in hadalkaasi uu dhignaa sidan mudane madaxweyne adiga ayaa ciidamo ku sii daabulaya deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya haddana waxaad iigu yeertay inaan kula hadal siiyo oo aan ka maslaxo cabdulcasiis taasi suurtagal ma aha marka hore ka soo celi ciidamada aad ku daabulaysa koonfur galbeed sidoo kale xilalka ka qaada ragga fowdada iyo buuqa ka wada deegaanada maamulkaasi isla markaana waxaa la ogaaday in taliye shub uu albaabka si xowli kaga soo baxay isagoo gaadiidkiisa u soo kaxaystay hoyga uu ka degan yahay muqdisho balse xasan sheekh oo ka carooday arintaasi runta ee indhaha laga saaray ayaa la sheegay in ciidamo uu ku amray in la duldego hoyga uu ka degan yahay magaalada muqdisho taliyaha ciidanka asluubka ee dhowaan xilka laga qaaday jenaraal mahad cabdiraxmaan oo loo garan og yahay taliye shub xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya ayaa meel xun gaartay saacadaha soo aadanna waxaa la shaacin doonaa in xildhibaan oduwa oo ahaa gacantii midig ee xasan sheekh maxamuud uu isaga baxay xisbigii JSB ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud kadib kulamo waan oo dhinacyadan laga dhex waday xildhibaan oduwa ayaa wacad ku maray in mar dambe uusan aamini doonin xasan sheekh maxamuud isla markaana uu garabkiisa ka baxay waxaa la ogaaday in ballamo kala duwan oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud la galay xildhibaan oduwa sambalolshe iyo rag kale oo jilib culus soo dhisatay kamid in uu uga baxay ballamahaasi ayaa la tilmaamay inay kamid ahaayeen in uu gacanta u gelin doono maamulada Hirshabeelle iyo Galmudug balse dhowaan ayaa waxaa soo ifbaxay in madaxweynaha uu halkaasi u wato rag kale oo saaxiibadii oo aad ugu dhow isla markaana isaga aanan soo dhisan balse raggan ayaa waxa ay ku hanjabeen in ay garabka madaxweynaha ka bixi doonaan kursiga filla Soomaaliya ay dhaafin doonaan sidoo kalena ay xoogooda iyo kartidooda ugu tartami doonaan maamulada Hirshabeelle iyo Galmudug xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya faraha ayay ka baxday barqanimadii maanta kulan lagu balansanaa in lagu dhexdhexaadiyo sambalolshe oduwa oo dhinaca iyo si la mid madaxweyne xasan sheekh maxamuud isla markaana ay garwadeen ka ahaayeen Faarax Sheekh Cabdulqaadir Beene iyo rag kale ayaa fashil ku soo dhamaaday waxaana daqiiqadaha soo aadan warbaahinta la hadli doona xildhibaan oduwa kaas oo shaacin doona inuu isaga baxay xisbigii JSB ee uu xogayaha guud ka ahaa sidoo kale xildhibaan sambalolshe oo 3 jeer soo noqday taliyihii nabad sugidda ayaa isna si cad uga baxay garabka madaxweyne xasan sheekh maxamuud dhinacyadan waa ay isku bareereen dagaalkana waxa uu ku soo aaday filla Soomaaliya ay dagaal kharaar ku qaaday deegaanada maamulka koonfur galbeed Soomaaliya deegaanada koonfur galbeed dhinacooda maxaa ka cusub dhowr diyaaradood ayaa maanta ka degay xudur iyo si la mid buur hakaba ciidamo tirabeel ayaa halkaasi lagu daabulay saanad ciidan tii ugu dambeysay ayaa halkaasi la geeyay dhaqaalaha tirabeelka ee deegaanadaasi ku sii qulqulaya ayaa lagu sii kala furfurayaa maamulada dhinacyada degmooyinka iyo gobolada cabdulcasiis laftagreen waxaa gacantiisa ka baxay qaybo badan oo kamid Bakool iyo Baay sidoo kale Shabeellada hoose hadda waxaa kaabiga lagu saaran yahay magaalada Baydhabo halkaas oo maalmaha iyo saacadaha soo aadan ay dagaalaha qaraar ka qarxi karayaan
cabdilcasiis laftagareenna waxa uu ku dhawaaqay in dhowaan doorashadu qabsoomi doonto maadaama ay soo ifbaxeen liiska xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed Soomaaliya. odayaal dhaqameed ayaa waxa ay shir la qaateen guddigii doorashooyinka ee uu dhowaan magacaabay laftagareen. shaqada doorashada koonfur galbeed waxa ay ka socotaa Baydhabo. sidoo kale mucaaradka maamulkaasi ee deegaanadaasi ka soo jeeda iyagana waxa ay wadaan abaabul ciidankii ugu dambeeyay. dawladdu waxa ay ku sii daabulaysaa deegaanada maamulkaasi gaar ahaan Buur-Hakaba oo ah halka ciidamada ugu badan lagu daabulayo in dagaal looga qaado maamulka koonfur galbeed gaar ahaan magaalada Baydhabo oo saldhig u ah cabdilcasiis laftagareen. isagana si la mid ah 4 jiha ayuu ciidamo u qaybiyay. Itoobiyaanka ayuu waxa uu dhiibay amniga guud ee magaalada Baydhabo. xaaladuna waxa ay taagan tahay baraka male. xilli walba ayaa fooda la isdari karaa. dhiig iyo maryo dhiig leh ayaa halkaas lagu kala guran karaya. daqiiqad ayaa ka xigta in dagaalka uu bilowdo. magaalada Baydhabana kaabiga ayaa lagu hayaa oo Daynuuna iyo deegaano kale ayay ciidamada dhinacyadan isku hor fadhiyaan. dhammaan dadweynaha ka kooban Global Somali Bantu Council Group sin salaan kadib aragooytan kulay wixii la sheego walla ka jira aboowa wixii sheegay oo intii dadkii security elboro beesa sifadi manansho haruugan shaqadiyo hadii diideen dadkaana baraale ayaan dhahay macna wajigi biladka adakeenka qabad fadi hadii la kusoo buri elborka iyo dadka ka halooy waa meel in ka faylahayti way elboro hiriisan hadda magayaalsho anta ku qoranyan liiska safanya sidii Chicago elborshe Cleveland elborshe Jackson Milan dhahaw oo maash usakan Atlanta International Airport she magaasha usakan Milas Heblow Hobby Airport Milan la dhahaw JFK LaGuardia maywa kan oo New York elborwinka New York yaalogay oo New York City ku wada kam maash magaciyaalka birko oo qarsanyana Armstrong New Orleans kan la dhahaw elborka kayaala Heblow Minas International Airport Newark kishe Philadelphia Phoenix magaasha usakan kan kala ma aragoyo lamadaas meel Florida kuwaas dhan ninkii ku soo aadinya dayuura hadii aad saaranta meelahaas meel ninkii ku soo aadinya ogaaw aysa horta soo jirta taas macna sheemayo macna ays qofkii dayuurada koroy imacal ninkii dajiyooy banaankaas ka baaradaan la dhahi kastay meeli aad la ko baaraw dayuurada ku koraasa maruugan banaankaas safanyan la dhahi askaroogi banaankaas safanaan dad waardi fadan iya dadka may la dhahayso bedelin digtoonow ka salqabaado elboro asxaabtana fadhiyan ay dhiyaalkan markasta jeebkaas in ka jiraan. Assalaamu calaykum.